الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعبي وينها وغيره بورمين هذه أجبان وهم هنقينا سودوية بلارن سودويين وصرح مدحوين كبيرين الوطني عبد الرحمن داهر هذا إن شاء الله تعالى أنا رجعنا إنه يروح كوكو يستمر شرح لماذا حسبك وين مثلا ما حدنا موبايل نورد بوليميكا وحن يسود ويننا موبايل ودبلتنا إن كبدا غيرنا يا مشرحة عبد الرحمن داهر آذن وأن من حمد يسين وكذا بيتبع أهنا من كلسوني بدن نفتيس أي آذي ومقطع بس كنا كلسون سيدنا اللي يرد عايه فرشوكتا يقبل كعوضا يجارهان كل شوين كده سمعنا مركا وحوين مثلنا وأن حدنا وحنا مدني عبد الرحمن زود قبل كاجي أول حسبي وطننا وحنوز شيءنا أنه هو حويا وحن وطننا عبد الرحمن داهر آذن أهنا نبدأ أنا وحرنا ولا نص على نص لكن ما ترى على بالماء أول هذا نعبد من غيره بقول عود عمو هذا نحيي صور عود عمل ما ينام كوا حيجا حق يجا شوف أنا فوق هذا نينا بدون هذا فوق هذا نينا أنا ولا عبد شيء ما فوق عمل ما ينام كيف بيجينا وان تقوسنا نروح نسومها سوينا كملين نقله وين نقدر نستغنى نقدر يلا مستر عبد الرحمن صاحب أنا هو صاحبي وايو نيكو حسنا يا هو صاحبي لكن يوم كان حسنا وحبي سوي نيكو وحدوني يا صاحبي نيكو وحزوري يا صاحبي مشرح هذا يلا يا عبد الرحمن داير هذا كان سوري ده بس هي حبنا الله صلاة وقتها أيام مهندقيا تصدحان وهم مهندقيا صحابة قرن كلام يا فرح طلب له يا محمد نقول له سووا مهندقيا وعكروا مهندقيا هواك يا علماء دينك يا وحجرتك يا عياشة دمنتهم مهندقيا أنا لما قاعد يا سلطان حسن الخير يا waxaan ka soo jeedaa beesha uu yahay عبد الرحمن ayaan ka soo jeedaa ruuxantii waxa weeye anagu haddaanu nahay beesha uu ka soo jeedo oo 12 waxaan kalsooni ka qabnaa musharaxa madaxweynaha ku-xigeenka عبد الرحمن داير ما جينا وحبك ما جينا أنا مو حنا هاي حسبك وعلى مكسواني كذبنا عبد الرحمن داير هذا المشرح لمدينته مشرح حكام يوم مشرح وطننا أيام اللي تعرفنا عين هذا ومياسة ليش هذا عفوا ومسكون عسل عين ومسكون عسل عين ما أنت وطن كلنا كعب من وطننا والله غيرك أنا سمع حافظنا كل الله ولا كلام هو يسمعين ما أنت وطن كلنا كعب من وطننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ودكتور عاد يا معلم كلام يفتح الصوت عليه. أنا هذا الصوت جابنا يا. أنا روح أنتم يا رب الله يبقى حسبك. دمية
iyo magaca xisbigaanada golaha deegaanka ee xisbiga wadani waxaan leenahay ku soo degdegmadaadii ku soo dhowow gobolkaagii waa dadkaagii aad kuu jecel waa dadkaagii rajayna aad ku guulaysato musharaxnimada maanta aad u taagan tahay ku soo dhowow aan leenahay degmadii boorama xisbigana maanta wuxuu galaya marxalada wuxuu galaya waxaa loo baahan yahay cidda kasbata shacabka cidda wadata mataqaana golaha dhexe cidda xisbiga watuma maanta guulaysanaysaa marka waxaa lagu soo koobaya cabdiraxmaan ku guulaysa halkaa maanta aad u taagan tahay xisbiguna waa dimuqraadiyad qof kastaa wuu iska sharixi karaa qof kastaa macnaamudda waa la dooran karaa qof kastaa ku dooran karaa marka cabdiraxmaan waxa la ku guulaysa maanta ilaahayna kula jiro kursigaa maanta aad u tartamayso dhammaantiinba aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta soo booqdo magaalada boorama ee caasimadda gobolka awdal ama caasimadda labaad ee somalilan farxad weyn bay ii tahay aad iyo aadna waan ugu mahadnaqayaa sida quruxda badan leh ee sharafta leh ee aad ii soo dhowayseen aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar labaad walaalayaal sidaad hore u maqasheen anigu waxaan u taaganahay madaxweyne ku-xigeenka xisbiga wadani ee doorashada soo socota waxaan u dagaalamayaa sababtaan u doortana waa idinka dartiin haddii aad fahmaysaan waa idinka dartiin bikoos waxaan ogahay waxaa dhallinyara halkaan maanta jooga ee bilaa shaqada ah ee meela u tagaan galala inay u baahan yihiin rajo inay u baahan yihiin ciday ku daynaan inay u baahan yihiin cid gaari garaysa oo nolosha u tilmaanta meeshan wax ka taga mooyaane wax ku soo noqdo ma aragno waxaan muu ballan qaadayaa inaan isku dayno sidii aan uga shaqayn lahayn isbeddel dhaba ayaa loo baahan yahay sidan kuma jiri karno walaalayaal waxaan idiin ballan qaadayaa inaan haddii aad idinku moodaan anigu waxaan ahay oo aan doonayaa inaan ka shaqeeyo sidii aad midnaan iyo wax wada qabsi iyo wada jir aa ugu gaari lahaydeen horumar maanta magaalada boorama wataa waad arkaysaan intaasay leeg tahay halkaa wax shaqaa iyo wax warshada iyo wax kala socdaa ma jiro waxaa soo dhallinyarayna saasay wada taagan shaqalaan waxaa loo baahan yahay inaad idinku isbeddelka gacantiinna ula timaadaan aad iyo aad baan